وهيلا هبلهن الصوماليات وحن عذركم وجهنا هدانا دلنيرت الصوماليات إن قرب تاجناهي هيل إيه هنا أن لا قرب تاجناهي هبلهن الصوماليات السيد فاشح الله رقميه يجو داير كرسيدا بأن لو جيسنيه قارة سوردا أما فيديو يدو حن لقباهنيه مجيان هبلهن الصوماليات حمان ونقول ماينه وأنا قرب تاجناهي مرول بهبلهن الصوماليات وين دلين وان دلي وين ردشين وين ردحين وانا دالي دونا فضلا ان جوجينو حمانتا ان كباهينينا هبلهن الصوماليات وهبلهني dunidu waa hadbacayn wayna murugo badan tahay maalin waad faraxsanaanaysaa maalin waad murugoonaysaa haday Soomaalida oo idil murugada ay kula qaybsanayso boqolaal ruux ayaad ka fiican tahay oo aan la ogeyn murugada haysato ruuxaantii ayuu qurux waxa iska soo dabadhacaya kaalmaha suugaanta gaar ahaan kuwa lagu raali gelinayo waaw qof markii la jecel yahay waa sidaan oo kale waxa jira kaalmo suugaan oo aad u fara badan oo loo qaadayo ayuuna qurux muddo 2 isbuuc ayaa ka soo wareegatay markii laga faafiyay muuqaal fadeexo ku saabsan runaantii muuqaalkaasi waxay ahayd muuqaal aad u naxdin badan balse dhammaan Soomaalida oo idil way ka falceliyeen gabi ahaanba muuqaaladaasna waa laga saaray runaantii dunidu hal mid ayaa jirta halka mid jirta waxay tahay haddaad qalbi furan tahay markastana alle aad aaminsan tahay waxba ma ka halaabayo qof kasto cadow ayuu leeyahay ruux kasto cadow ayuu leeyahay haddii aad dowlad tahay haddii aad shakhsi aad tahay cadowgaaga ma ka foga tada kale Soomaalida badi waxa cadow yeesha qofka markuu caan yahay maxay tahay qofka markuu caan yahay cadow looga dhiganayo qofka markuu caan yahay waa astaan Soomaaliyeed sababtay tahay haddii qofkaasi uu yiraahdo Soomaalida inta badan waxa ay tiraahdaa dhagax la tuuray meel dhow ayuu ku dhacaa laakiin hadal la sheegay meel fog ayuu ku dhacaa taa waxaan wali jeedaa qofka caanka ah dal lisan waa uu burburin karaa su'aalahan oo kale inta badan waxaa jirta fanaaniin kala duwan oo qadariya fanaaniintooda يعني فنانينتي هوري مركزتو aad fanaan weydiiso bal ka waran fanaaniinta hore sidee ay isku tihiin waxa uu ku leeyahay fanaaniinta hore waan aaminsanahay waan taageersanahay runtii markastana waxaan jeclahay heesooda inaan dhageysto ninka ciidanka ah oo askariga ah oo dablaha ah hadii aad weydiisid warniyow ma taqaantaa sargaalkii hebel ahaa waxa uu ku leeyahay ninkaas odayga waa macallinkayga ninkaas odayga waa qatar ninkaasi wax badan ayuu isoo baray hadii aad weydiisid ardaygii dugsiga quraanka dhigan jiray oo aad weydiisid oo aad tiraahdid macallinkaaga ka waran waxa uu ku leeyahay waxa uu ahaa macallinkii ugu horeeyay quraan isoo baray waxa uu ahaa macallinkii ugu horeeyay akhlaaq isoo bara waxa uu ahaa macallinkii ugu horeeyay markasta nolosheedina aan ka bixin sababtoo uu dhahay waxay tahay waa jacayl uu qabo ruux kasto ma hilmaamo ruuxa uu jecel yahay haddii adiga ahaantaada daawada ruuxa jeceshahay ruuxaas yaa kala tagtaan adab oo jeceshahay marnaba ma laga yaabaa hilmaamto waa laga yaabaa haddii aad guursato inaad hilmaamto laakiin 100% ma sahlana ruuxa jeceshahay in aad beebena ku hilmaamto runtii ayuun qurux cadowga yaa loo jibiyay waana midda Soomaalida maxaa la yiraahdaa hil walaalo la yiraahdo waanu ku faraxsanahay markasta waxaan rajaynaynaa Soomaaliya wax kasto oo yacni qofka bani aadamka qabsado tan kaligeeda ma rabno inaynu ogaano salahan oo kale waxa jirta hees oo waayaha cusub ay qaadaan oo dawladda inta badan lagu dacaayadeynayo runtii anaka dawlad ma nihi laakiin shacab aynu nahay shacabkii ayaa ka falceliyay waad aragteen inta la dislaagareeyay waad aragteen inta macnaha commentiga laga bixiyay Soomaalida horumar ballaaran ay sameynaysaa sanad ka sii dambeeya Soomaalidu markasta
saacad kasii dambeysa horumar ayaa la gaarayaa. waana midda kaliya loo baahan yahay. wallaahi yaa ku dhaartay waxaan aaminsanahay 2 sano soo socota ama 3 sano soo socota inaysan jirin qof la fadeexeynayo. sababtay tahay qofka haddii la bombooniyo yacni markaasi waa laga yaabaa in la ogaado in la fadeexeysay, laakiin waxaan aaminsanahay sanadaha soo socdo in waxaasi oo dhan oo ay dhici doonin. qof kasta oo caana waxa uu xaq u leeyahay in uu si waadaxa dadka wixii u soo bandhigo. haddii aad tahay qof caana qodhaada waxaa loo baahan yahay inaad is ilaaliso. markasta qofka markuu caan yahay iyo qof kaleeto oo noo siman yahay anaka qofka markuu caan yahay iyo ruux kaleeto oo inoo siman yahay isku mid ayay markaasi noo tahay. qofka bani aadamka su'aal ahaan oo kale qof baa aniga qalad ka galay ma caafinaya haddaa ku dhaho taas aniga qalad ayay u tahay. sababtay tahay allah subxaanahu wa tacaala wax ka weyn miya jira? waa maya soo maaha. ilaah wuxuu ku leeyahay haddii addoonkayga uu dembi galo uu ka toobad keeno dembigaasi waanu caafiyey. allah subxaanahu wa tacaala ayaa dembigaaga caafiyey. sow adigoo bani aadama qalad qof hadduu kaa galo caafi weyso bal ka waran. taa ma loo baahnaa? koley cayuuni qurux iminkan waxaa weyaan ay ku qanacsan tahay. fanaaniin kala duwan ayaa hees u soo qaaday oo hees raalli gelina madaxa ayay cayuuni qurux noo saaran tahay. waxaana loo baahan yahay in inantan cayuuni qurux horta haddii aynu waxyar taariikhdeeda idinkaga sheekeyno. cayuuni qurux horta magaalada muqdisho ku dhalatay 1998 ayay magaalada muqdisho ku dhalatay. runaantii inantan waxay dhigataa mid kamid ah jaamacadaha ku yaala magaalada caasimadda muqdisho. jaamacadda way dhammeey rabtaa muddo 1 sano wax ka yaraya oo dhiman ama 2 sano wax ka yaraya oo dhiman. inanta waa inan iska qalbi furan, waa inan iska daacada, waa inan markaasi nasiibka u heeliyay inay caan noqoto. ma jirto qof masaakiina ama qof waxgarada inta badan cayuuni qurux inta badan niyadda weligeed ma gelin jirin cayuuni qurux caan ayay noqonaysaa. laakiin waqtiga ayaa u heeliyay waxay hadda ka mid tahay dadka macallimiinta loogu bartay TikTok inay dadka ku madadaaliso, inay dadka maxaa la yiraahdaayo xaqa ay u sheegto. inkastoo inta badan kaalmaha suugaanta iyo waliba waxyaabaha kala duwan markaasi kuma digarayso, laakiin 100% waxaan aaminsanahay mustaqbalka waa uu soo dhow yahay. qofka aad arkayso maanta oo ku madadaalinayo berita ka maalin waxaa laga yaabaa wax badan inaad u faa'iideyso, wax badan inaad ka faa'iideysato. muqdisho ku nooshahay inantan koley waxa ay sheegtay in muuqaalkii hore 1 sano ka hor uu ahaa tada kaleeto yar ay isla socdeen. so hadal uu ku yiri warheede inantaay aniga waxaan ka hayaa muuqaalkan yar ma ii imaanaysaa mise waxa aan ku sameeyaa in muuqaalkan aan faafiyo. Soomaalidu hal kamid ah ku jeclaa waxay tahay waa geesiyaal dhaliwayaan. waxa ay tir waxa rabsamay dadka u dirayso waa Soomaali Soomaa. waxa ballan kaga qaadaya ay tiri in arintan oo aad sheegayso aniga ahaanteedii ma aragtay aniga wax qalad sameyn in aniga la iraali geliyo wayna dhacday arintan. fanaaniin kala duwan ayaa hees u soo qaaday, fanaaniin kala duwan ayaa iminkan hees u soo wada. runaantii aniga dafran ahaan lahays ayaan u qaadi lahaa. marka Soomaaliyay markasto yaa la cabsanin. inta badan wiilal waxaa jira saqa jaamina oo duliyaala oo doonayo inay gabdhaha ay fadeexeeyaan, laakiin kolley ma dhici doonto. waxay leeyahay aad baan idin salaamayaa. rashkatu love subscribe saara saaxiibayaal bal heesta waatan nala daawo muuqaalkan yar intan ayaa ku hakinaya. saaxiibayaal subscribe channelkan oo saara ma sanadeen. عيوني هعيشون عقنا دوني ذا ونعين عقنا دوني ذا ونعين عدي بالنفتاذو
هعيشون عقنا دنيا هونعين عقنا دنيا هونعين